Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa bayaan ka soo saaray qoraalkii ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya kaas oo lagu sheegay in la hakiyay awoodda wasiirka koowaad ee dalka kadib markii sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha la sheegay inuu jibiyay dastuurka ku-meel gaarka ee dalka. Bayaanka ka soo baxay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa waxa uu dhignaa kadib markii uu Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ka arkay warbaahinta warqad baalmarsan shuruucda dalka oo ka soo baxday xafiiska madaxweynaha wuxuu soo saaray warqadda ka soo baxday madaxweynaha oo ciwaankeedu ahaa hakinta awoodaha wasiirka koowaad dardargelinta doorashada dalka waa mid si cad u hareermarsan dastuurka ku-meel gaarka ee qaranka wuxuuna si cad ugu been abuurtay qodobada 87 iyo 9 ee dastuurka oo aan meelna loogu xusin inuu madaxweynaha fargelin karo awoodaha dastuuriga ah ee ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa. 2 madaxweynuhu wuxuu si ku talagal ah ugu tuntay qodobka 99 ee dastuurka xarfihiisa A, B, C, D, E, F, G, H kuwaasoo dhammaantood qeexaya in xukuumadda awood buuxda u leedahay dejinta siyaasadda guud ee xukuumadda iyo dhaqangelinta ogolaanshaha iyo fulinta xeerarka maamulka, diyaarinta miisaaniyad sanadeedka iyo xisaab xirkeeda iyo dhaqangelinta shuruucda, sugidda nabadgelyada dalka, ilaalinta danaha dowladda, magacaabista iyo xilka qaadista saraakiisha sarsare ee dowladda. wuxuu sidoo kale madaxweynuhu jibiyay qodobka 100 oo uu ra'iisul wasaaruhu awood u siinayo magacaabista iyo xilka qaadista golaha wasiirada. 3 madaxweynuhu wuxuu jibiyay qodobka 103 ee dastuurka ku-meel gaarka ah oo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa xaq u siinaya inay hayaan awoodda fulinta ee dalka inta u dhaxaysa taariikhda doorashada guud iyo marka la dhaarinayo ra'iisul wasaare cusub iyagoo waajibaadkooda u fulinaya si caadi ah. 4 madaxweynuhu wuxuu iska nitirayaa qodobka 91 ee dastuurka oo qeexaya muddada xilhaynta madaxweynaha oo ah 4 sano oo ka bilaabata maalinta xilka loo dhaariyo kuna eg 8 Febraayo ee sanadkan isagoo isku dayaya inuu fargeliyo awoodaha dastuuriga ah ee xukuumadda si uu abuuro fowdo iyo deganaansho la'aan. 5 haddaba iyadoo laga duuliyo sareynta sharciga ra'iisul wasaaruhu isagoo xiganaya qodobka 4 farqadiisa koowaad ee dastuurka ku-meel gaarka oo qeexaya in xukuumaddu u hoggaansamayso oo kaliya go'aanada waafaqsan dastuurka wuxuu cadeynayaa in aanay waxba ka jirin warqadda sharci darrada ee ka soo baxday madaxweynaha loona hoggaansamaynin. B carqaladeynta doorashooyinka iyo siyaasadeynta nabadgelyada iyo dhaqaalaha dowladda. 1 madaxweynaha oo mas'uuliyadiisu ahayd in uu dalka ku hago doorashooyin daahfuran oo dimuqraadiyad ah ayaa ku guuldareystay inuu fuliyo waajibaadkaas dastuuriga ah taasoo keentay in la gaaro heshiiskii 17 Sebtembar 2020 oo ra'iisul wasaaraha looga idmaday inuu fuliyo heshiiskaas si ay dalka ugu dhacdo doorashadii lagu heshiiyay. 2 nasiib darro madaxweynaha isagoo isticmaalaya qaar ka mid ah hay'adaha amniga iyo xafiiskiisa wuxuu maalmo gudaheed bilaabay inuu ku dhaqaaqo falal uu ku fashilinayo doorashada jibinaya heshiiskii la gaaray waxyeeleynaya awoodda ra'iisul wasaaraha isla markaana abuuray khilaaf baasan taasoo ugu dambeyn uu madaxweynuhu qaaday isku daygii dhiig ku daatay ee muddo kororsiga ah ee aan weli ka tanaasulin madaxweynaha. 3 madaxweynuhu wuxuu bidihii la soo dhaafay qaaday tallaabooyin uu ku carqaladeynayo awoodihii dastuuriga ahaa ee baarlamaanka hortiisa dib ugu celiyay ra'iisul wasaaraha ee hogaaminta amniga iyo doorashooyinka dalka. wuxuu sidaas oo kale isku dayay burburinta heshiiskii 27 May 2021 oo lagu soo afjaray qalalaasihii ka dhashay go'aankii muddo kororsiga ee madaxweynaha ee 12 Abriil 2021. 4 si lamid ah xasradihii uu abuuray madaxweynuhu 25 bishii Abriil ee keenay kala jabkii ciidanka qaranka iyo barakicii dadweynaha Muqdisho. warqadda sharci darrada ee uu soo saaray madaxweynuhu waxay daliil u tahay in aan weli ka tanaasulin damiciisa ahaa inuu dalku ku celiyo colaad sokeeye ama si aan sharciga waafaqsanayn ku joogo xafiiska dalka ugu sareeya. C dardargelinta howlaha hay'adaha dowladda iyo doorashooyinka. 1 si waafaqsan qodobka 99 100 iyo 103 ee dastuurka
kumeel gaarka ah ra'iisul wasaaruhu wuxuu farayaa dhammaan hay'adaha dowladda inay si caadi ah u gutaan waajibaadkooda shaqo ee u adeegista shacabka Soomaaliyeed iyo ilaalinta danaha qaranka. 2 si waafaqsan heshiisyadii 17 September 2020 27 May 2021 iyo 22 Agoosto 2021 ee uu gaaray golaha watashiga qaranka. Ra'iisul wasaaruhu wuxuu farayaa dhammaan gudiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed inay dardargeliyaan dhameystirka doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka iyagoo ilaalinaya jadwalka guud ee doorashooyinka dalka. 3 Ra'iisul wasaaruhu wuxuu ku boorinayaa madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka inay u fududeeyaan gudiyada doorashooyinka gudashada waajibaadkooda shaqo si loo dhameystiro doorashooyinka dalka. 4 si waafaqsan qodobka 127 farqadiisa B, C, E ee dastuurka kumeel gaarka qaranka. Ra'iisul wasaaruhu wuxuu farayaa taliyayaasha ciidamada qalabka sida in aynan ku milmin arrimaha siyaasadda, dhowraan talinta sharciga ee hay'adaha dimuqraadiga ah iyo ilaalinta dastuurka, isla markaana sii wataan waajibaadkooda ka saaran ilaalinta nabadgelyada muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo xasiloonida guud ee qaranka. 5 Ra'iisul wasaaruhu wuxuu qeybaha kala duwan ee ciidamada qaranka ku bogaadinayaa sida geesinimada iyo nafarista leh ee ay u adeegayaan dalkooda. Wuxuu xaqiijinayaa in xukuumadda ay ka go'an tahay joogteynta xuquuqda ciidamada iyo qaadista tallaabo kasta oo garab istaag ah geesiyaasha u taagan difaaca dadka iyo dalka Soomaaliyeed. 6 Ra'iisul wasaaruhu wuxuu hoosta ka xariiqayaa in aan la aqbali karin in miisaaniyadda qayb ka mid ah hay'adaha dowladda loo isticmaalo si ka baxsan nidaamka hufnaanta maaliyadda ee dalka, waana in hay'adaha maaliyadda ku taagnaanta u hoggaansamida wareegtada ra'iisul wasaaraha ee ka soo baxday 9kii bishan ee ku salaysneed isla xisaabtan iyo daafurnaan. Baaq 1 sida uu qabo qodobka 3 ee dastuurka kumeel gaarka ra'iisul wasaaruhu wuxuu xusuusinayaa madaxweynaha inuu ilaaliyo mabaadi'da asaasiga ah ee kala socnaanta awoodaha hay'adaha dowladda, joogteynta fargelinta uu ku hayo xukuumadda iyo garsoorka oo tanaasul ay u tahay sida uu iskugu dayo inuu hor istaago cadaaladda u helista Ikraan Tahliil Faarax. 2 Ra'iisul wasaaruhu isagoo ilaalinaya danta guud ee qaranka iyo nidaamka dowladnimada wuxuu ugu nasteexeynaya madaxweynaha inuu joojiyo ku xadgudubka dastuurka qaranka, jibinta heshiisyadii doorashooyinka, carqaladeynta howlaha xukuumadda, abuurista xasilooni darrada, isku dayga sadbursiga doorashooyinka oo ay tahay inay u sinaadaan dhammaan musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha. 3 Ra'iisul wasaaruhu wuxuu ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed inay muujiyaan deganaansho, ilaaliyaan nabadgelyada, kuna garab istaagaan xukuumadda inay dhameystirto doorashooyinka dalka oo ah wadada kaliya ee furan si aan ugu baaqsano dib u noqosho. 4 Ra'iisul wasaaruhu isagoo ugu mahadcelinaya doorkooda wuxuu ugu baaqayaa beesha caalamka inay ka gacan siiyaan xukuumadda dhameystirka doorashooyinka iyo ka hortagga isku day kasta oo lagu carqaladeynayo doorashooyinka. Wuxuuna si gaar u xusuusinayaa in il gaar ah lagu hayo shakhsiyaadka ku howlan fashilinta doorashooyinka iyo abuurista xasilooni darrada siyaasadeed iyo mid amni. Ballanqaad xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay u ballan qaadaysaa shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka inay xoog saarayso dhameystirka doorashooyinka, ilaalinta nabadgelyada iyo dhowrista nidaamka dowladnimada si hufnaan dalka loogu kala wareego si nabadgelyo ah. Arrintan ayaa waxay sii xoojinaysaa khilaafka ka dhex madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalka, iyadoo dadka daneeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya ay sheegayaan haddii uu sii xoogaystay khilaafkan in uu abuuri karo colaad sokeeye.